السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wanaagsan dawada meel kasta waa dunida nagala socotaan waa habeenimo xada bisha maajina waa 8 sanad 2026 qodobada doonasho lagu wataan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa kulan xasaasi ah la qaatay ugaaska guud ee beesha Galbeedsi isagoo kala hadlay arrimo markaasi kala duwan oo la xiriira xaaladihii markaasi ka taagnaa gobolada galbeedka Soomaaliland oo xukuumadda Soomaaliland ay doonayso beesha Galbeedsi inay ku qanciso dadaalada nabadeed ee hadda ay wado iyo in markaasi la iska hor keeno ama guud ahaanba la isoo horfadhiisiyo beesha Ciise iyo beesha Galbeedsi marka la gaaro gabi ahaan ama laga baxo bisha barakeysan ee Ramadaan haddaba caawa maxaa dhex maray aniga doonaa ugaas doodi iyo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland waxaa dhinaca kale aan soo qaadan doonaa wararka la xiriira Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa dhabarka ka toogtay markaasi laba shakhsi oo uu aad gabi ahaanba isku lahaa waa ay markaasi ku abaalgudi doonaan waxaan eegi doonaa labada mas'uul ama labada madaxweyne ee gabi ahaan markaasi Xasan Sheekh Maxamuud daaqada kala baxay saacadihii la soo dhaafay meesha cidlada ana markaasi fadhiisiyay waxaan dhinaca kale aan soo qaadan doonaa dowladda Iran oo la ogaaday markaasi wadan si weyn uga caawiyay guusha muhiimka ee markaasi Mareykanka uu ka gaadhay ama ay ka gaadhay markaasi dowladda Iran waxaana Mareykanku ogaaday gabi ahaanba arrinka la xiriira in Iran uu mari la'yahay markaasi uu ka dambeeyo wadankaasi oo ka caawiyay gabi ahaanba in Iran ay awooddaasi ballaaran yeelato waxaa soo kale soo qaadan doonaa dowladda Mareykanka oo saacadihii ugu dambeeyay sheegtay inay 27,000 oo bambaanooyinka iyo diyaaradaha isqarxiya markaasi ay u dirtay ama ay ka iibisay markaasi Israel iyadoo dad fara badan ay ku tilmaameen arrinkaasi mid gabi ahaanba madadaalo u muuqda maadaama Iran ay raahday Israel iyo Mareykanku aysan meel laba kala jirin oo ay muddo markaasi ay ahaayeen gabi ahaanba jaal dhinaca dagaalka ah iyo markaasi waxa lagu tilmaami karayo hal wadan marka la joogo ka jawaabista markaasi xaaladaha kala duwan ee caalamka si kastaba xalku noqdo waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay la xiriira xilligan iyo arrimaha taagan duqeymihii maanta loo geystay wadamada khaliijka iyo qaabka ay uga jawaabeen oo markii ugu horeysay ay sheegeen in gabi ahaanba ay ka hortagayaan arrimaha la xiriira in ay khasaaro ballaaran uu kasoo gaaro weerarka ay dowladda Iran ku qaadayso wadamada khaliijka dhinaca kale madaxweynaha wadanka Iran waxa uu sheegay caawa inaysan marnaba weerari doonin wadamada dariska la ah haddii uusan kaga imaanin weerar waxa arrinkan ugu durxulaya wadanka Azerbaijan oo isagoo isku diyaarinaya gabi ahaanba dagaal weyn oo uu la galo dowladda Iran waxaan dhinaca kale eegi doonaa kooxihii Kurdiyiinta iyo halka uu xaalkoodu marayo Mareykanka ayaana ka dhaxlayay gabi ahaanba kooxahaasi saacadihii la soo dhaafay balse arrinkoodu waxa uu muuqdaa mid aad markaasi hoos ugu dhacay 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxaa soo qaadan doonaa haddaba kaydka hubka ee wadanka Iran uu haysto oo la ogaaday ilaa iyo intee markaasi ayuu sii socon doonaa dagaalka gabi ahaanba Iran ay xilligan la galayso wadanka Mareykanka ilaa intee ay si dagaalami kartaa dowladda Iran ayaa sidoo kale warbixino kala duwan lagu ogaaday saacadihii la soo dhaafay waxaa soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay arrinkaasi la xiriira isoo kale waxaan eegi doonaa safarka Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku marayo qaar kamid ah wadamada qaaradda Afrika iyo markaasi meelaha kala duwan ee uu hadda booqday saacadihii ugu dambeeyayna madaxweynayaal ilaa iyo 8 ah ayaa markaasi uu la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ah wadamada gobolka Geeska Afrika Suudaan waxa ay markaasi ku hanjabaysaa dowladda Suudaan ee markaasi taageeri doonto gabi ahaanba dhinacyada ku dagaalamaya bariga dhexe mid kamid ah haddii aanan si degdeg ah markaasi gabi ahaanba wadankaasi looga joojinin faragelinta lagu hayo waxaan eegi doonaa dowladda Iran dowladda markaasi Suudaan wadanka ay doonayso in gabi ahaanba ay taageerto qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dhanka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa kulan xasaasi ah la qaatay caawa ugaaska guud ee beesha Galbeedsi ugaas doodi waxaana gabi ahaan kulankan oo ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland lagu falanqeeyay arrimaha la xiriira xaaladaha markaasi ka taagnaa gobolada galbeedka Soomaaliland iyo sida lagu xallin karayo iyo waxa ay doonayso markaasi ama ay doonayaan beesha Galbeedsi iyadoo beesha dhinaca markaasi Ciise muddooyinkii dambeba ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin wax walba oo ku aadan in la soo hor fadhiisto waxa la tabanayana markaasi la isku sheego nabadna gabi ahaanba la isla qaato madaxweynaha Soomaaliland oo kulan afur ah la qaatay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa kulankan afurka qasriga madaxtooyada kula qaatay ugaas
doodi. Kulankan oo madaxweynaha ku helinayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Cabdulla Maxamed Carab ayaa ku qabsoomay jawi is-ixtiraam is-afgarad leh waxaana diiradda lagu saaray xoojinta nabadda, amniga iyo wadajirka bulshada ee gobolada Awdal iyo Salal. Madaxweynaha iyo ugaaska guud ayaa ka wada hadlay doorka muhiimka ah ee hoggaanka dhaqanka ay ku leeyihiin ilaalinta xasilloonida iyo xoojinta wada noolaanshaha bulshada. Madaxweynaha ayaa ugaaska ku bogaadiyey kaalinta ay hoggaanka dhaqanku kaga jiraan nabadda iyo isku haynta bulshada, isagoo xusay in xukuumaddu mar walba diyaar u tahay wada shaqayn dhow inay la yeelato markaasi gebi ahaanba dowladda. Ugaaska guud ayaa dhankiisa madaxweynaha uga mahadnaqay kulanka, isaga oo muujiyey sida ay markaasi uga go'an tahay si xoojinta nabadda, midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada Jamhuuriyadda Somaliland. Haddaba waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan ee hoose la isla wadaagay in ilaa iyo hadda aan gacan lagu haynin ugaaskii guud ee beesha Ciise oo ay beesha Gadabiirsi u arkayso in isagu uu ahaa ciddii dagaalka ku baaqday. Ilaa iyo haddana dagaalkii uu ku baaqay markaasi aanan meel looga noqday jirin oo uusan weli isagu markaa afkiisa ka sheegin inay nabad markaasi haddana ku baaqayaan, balse waxa ay Somaliland ku marmarsiyoonaysaa ugaaskaasi guud ma aha saldhiggiisa Somaliland. Beesha Ciise qayb ka mid ah waa ay degan tahay, ugaaskaasina way aaminsan yihiin, balse gebi ahaanba ugaasku ma aha reer Somaliland marka guud ahaanba la eegayo. Ugaasku Itoobiya iyo Djibouti ayuu u dhexeeyaa, gaar ahaan Ismaaciil Umar Geelle ayuu hadda markaasi aad ugu dhow yahay, taasoo keenaysa inay Somaliland markaasi ka baadigoobi karaynin nabad iyo in la soo hor fadhiisto iyo markaasi in xaaladda ka taagan gobolada galbeedka Somaliland lagu xalliyo nabad. Waxaa loo arkayaa gebi ahaanba dowladda Djibouti siyaasadaha ay gudbinayso inay si weyn gebi ahaanba ay ugu adeegsanayso dhaqanka. Waxay doonaysaa dowladda Djibouti in goboladaasi galbeedka aysan wax horumar ka dhicin, dekedda laga sameynin, wadooyin laga sameynin. Haddii la sameeyo waxay aaminsan tahay dowladda Djibouti in gebi ahaanba laga guuri doono oo iyadu ay noqon doonto markaasi xero madhan, taas oo dowladda Djibouti markaasi lagu sheegay inay tahay imaan la'aan aad u weyn oo ay qabto markaasi xukuumadda dalkaasi Djibouti. Horumar ka dhaca markaasi gobolada galbeedka ama Salal iyo Awdal wuxuu u soo kordhiyo Djibouti mooyaane wuxuu ka dhimaya ma laha ay leeyihiin gebi ahaanba dadka falanqeynaya arrinkani, balse weli xaaladdu way cakiran tahay. Waxaana xukuumadda Somaliland ay ku dadaalaysaa in marka la gaaro gebi ahaanba bisha barakeysan ee Ramadaan dhammaadkeeda in xaaladda ka taagan markaasi gobolada galbeedka inaysan dib u soo noqonin, maadaama iyagoo dagaallo ay ka taagan yihiin ay bishan barakeysan soo gashay, xaaladduna ay hal mar dantay. Waxay ka cabsi qabaan in mar kale markaasi ay dib u bilaabato guud ahaanba arrintaasi. Dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dhanka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud uu yaaban yahay, waxaana saacadihii ugu dambeeyay uu arkayaa in laba nin oo uu muddo tacab soo geliyey oo uu muddo difaac iyo gaashaan iyo garab u ahaa inay hadda markaasi banaynayaan waqtiga ugu baahi badnaa garabkiisa. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo labada maamul ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay markaasi ay ka dhex taagneed. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka bariyay markaasi labadaasi nin waa lafta gareen iyo qorqoore inay taageeraan dastuurka cusub ee markaasi la ansixiyay ama gebi ahaanba ay baarlamaanku meel mariyeen, arrinkaasi oo ay ka diidanayeen labada madaxweyneba. Hadda labada ninba markaasi sharci kuma fadhiyaan, kuraastaasi ay ku fadhiyaan iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayuunbaa ku hayay muddadaasi oo gebi ahaanba siiyey sharci darre inay kursigaasi ku joogaan. Haddana ninkii markaasi waxaas u sameynayay ayaa ay hadda kusoo kala fireeyeen. Waana siyaasadda Soomaaliya ee leeyahay duqi Xasan Sheekh aad ayuu u yaaban yahay markaasi caawa oo xaaladdu ay ku cakiran tahay. Waxaana telefoonadooda markaasi uu muddo wacayay qorqor iyo lafta gareen oo la tilmaamay inay aad ugu dhow yihiin dhanka mucaaradka markaasi inay aadaan, maadaama marka siyaasaddu Soomaaliya ayaa munaafaqad ku dhisanba. Marka waqtigu uu soo dhowaado ee la isdhaho doorasha la geli doonaa, waxaa la aadaya dhinaca markaasi qofka la isleeyahay uu ugu dhow yahay inuu markaasi kursiga ku guuleysto, si aad guud ahaanba aanad uga bixinba arrinka la xiriira gebi ahaanba inaad dowladda markaasi halkaa timaada aad ku marnaato. Si kastoo xaalku uu noqdaba waxaa la dareemayaa in gebi ahaanba Xasan Sheekh Maxamuud haddii labadaasi maamul ay qaadacaan gebi ahaanba dastuurka inuu sidaasi ku burayo oo uu meesha kaga baxayo. Maadaama laba maamul oo hore markaasi ay hore u qaadaceen Jubbaland iyo Puntland, haddii Koonfur Galbeed iyo Galmudugna ay kusoo biiraan wax hadhaya ma jiro markaasi maamul goboleedyadii, waa uun gebi ahaanba Jowhar iyo Hirshabelle oo maamul markaasi aanan aad u sii tamareysanin ah.
si kastoo xaalku uu noqdaba waxaa gebi ahaanba markaasi dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dhanka dowladda Iran ayaa la ogaaday markaasi wadanka Ruushku inuu yahay wadanka xilligan ka dambeeya guulaha muhiimka ah ee dowladda Iran ay gaadhay dagaalka inta lagu guda jiray xitaa Mareykanku waxa uu cadeeyay in markaasi Ruushku uu si weyn u caawinayo dowladda Iran xitaa uu tusayo markaasi howlgallada ay sameynayaan bartilmaameedyadooda oo ay siinayaan gebi ahaanba sirdoonka dalka Ruushku macluumaad ku aadan meelaha ay duqeynayaan arrinkaasi oo gebi ahaanba la tilmaamay in guulaha hordhaca ee dowladda Iran ay gaadhay hadda inay ka caawiyeen ama uu ka caawiyay wadankaasi Ruushka waana arrin weyn oo gebi ahaanba muujinaya in Mareykanku uu dib u fadhiisto oo uusan ku degdegin sii wadida dagaalkaasi haddii dagaalkaasi uu sii wado Mareykanku meel xun ayuunbuu ka dhici doonaa ayaa leeyahay oo gebi ahaanba xaaladiisu ay cakirmi doontaa haddii uusan si degdeg ah uga fikirin dhinaca uu u leexinaya markaasi dagaalkaasi dagaalku maaha mid ay Iran kaliya ku jirto waa dagaal caalami ah oo wadamo badan ay ka qayb qaadanayaan baa leeyahay waliba daha gadaashiisa kuwa dhaqaale markaasi u arkaya kuwa siyaasad ahaan u arkaya Iran inay taageeraan kuwa doonaya markaasi in ay ujeedooyin kale isla fuliyaan oo gaashaan buuraysi arrimaha sameeyaan caalamku marka hadda wuxuu noqday gebi ahaanba meel qof walba iyo dantiisa uu eeganayo ama wadan kasta uu ku xisaabtamayo guud ahaanba dagaal weyn oo ka dhaca caalamka waxa ahamiyadda koowaad la siinaya hadda dunida ee wadamada oo dhan ay ka fikirayaan waa dagaal haddii dagaal uu ku qabsado markaasi maxaad yeelaysaa haddii laga fikirayo markaasi labadii gebi ahaanba decade ama labadii markaasi 20 sano ama 30 sano soo dhaafay sidee wadankaaga uu ku horumaraa oo dhaqaale fara badan aad ku samaysaa hadda waxaa la gaaray baa leeyahay dunidu inay dib u laabato oo wadan kasta uu ka fikiro seed isku difaaci doontaa haddii lagu soo weeraro waana waxa hadda markaasi caalamka gebi ahaanba ka taagan Iranna waxay u muuqataa in gebi ahaanba ay muujinayso awood aad u weyn iyadoo kaligeed aan ahayn oo la tilmaamay in ay wadamadaasi kala qayb qaadanayaan xitaa Shiinaha ayaa la dareemayaa inuu qayb markaasi ku leeyahay akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo